waxaan xan ku maqlaay in uu dhahay dani waxaan u istaagayaa xilka doorashada madaxtinimada aan rabaa inaan u istaago inuu dhahay xataa waa la sheegay marka dani yaa dooranay dani cid dooranaysa ma lahan Soomaali haduu asika soo harana cid dooranaysa ma lahan jaamacadda farmaajo wax ka bartay uu ka qalin jibiyay jaamacadaas aan ka soo baxay PhD aan wataa mucaaradka oo dhan waa xirxiri doonaa jeelan ka buuxin doonaa ninkayga waxaan jeclahay inaan ka dhigo wasiir ra'iisul wasaaraha wadanka ina asiga uu noqdaa ma jeclahayba assalaamu calaykum ummadda Soomaaliyeed meel kasta adduunka dacladiisa ka joogtaan oo anigoo ah Hindi Barre Faarax oo ku magac dheer kuwin Soomaali waxaan u taaganahay xilka madaxtinimada Soomaaliya xilka madaxtinimada dawladda federaalka Soomaaliya u taaganahay marka waxaan u baahanahay shacabka Soomaaliyeed meel kasta adduunka dacladiisa ka joogaan in ay taageeraan soo dhaweeyaan wax muddo badan wadankeena waxa xukumayay nin yaani ragga madaxweyne ka ahaa marka hadda anagu waxaan jeclahay anigoo dumar ah inaan u istaago xilka madaxtinimada Soomaaliya kuna haweenahay inaan qabto insha Allah haduu Ilaahay idmo marka waxaan jeclahay ninkan ay soo dhaweysaan siiba dumarka inay soo dhaweeyaan taageeraan garab istaagaan hadda waxaan ku suganahay magaalada Nairobi aan ku suganahay mar dhow ayaa imaaday marka qalalaaso iyo dhibaato hayaan kuwa mucaaradka ah marka aniga madaxweynaha isma diidanin madaxweynahana markii soo hore jaamacad uu madaxweynaha ka soo baxay aan anigana hadda ka soo baxay marka farmaajo si fiican isku naqaanaa dadkii eloodka ka dambeeyay oo Mareykanka wax ku soo bartay waxa aaminsanahay horta ruuxa koobaad aniga ahay qofka labaad inuu farmaajo uu booska u gali doono marka haday dhacdo inuu farmaajo wareega saddexaad oo kale uu iiga hormaro wixii aan haysto waxaan jeclahay inaan ugu shubo oo aniga asiga maadaama iskala imaanay aan u kaan beengareynay waqtiga uu asiga uu ahaa uu doonayay inuu noqdo madaxweyne aan kamid ahaa xisbiga Tanyo aan kamid ahaa xisbiga Tanyo wixii dadka soo dhisay aan ku jiray marka waxaan jeclahay haduu iiga guuleysto wareega labaad wareega saddexaad oo iiga horbaro aniga waxa aan haysto iyo wixii leeysiyo leeygu codeeyay asi ugu shubo laakiin wareega koobaad ama wareega labaad ba hadaa ku soo baxo saasuu baska dambe u soo raacaya farmaajo hadaa guuleysto waxa ii qorsheysan wadanka Soomaaliya aan wax ka bedeli doono waxyaalo badan inaan ka bedeli doono hooyada rafaadsan waxa Soomaaliya oo meel walba la ka taagan aan dhibaatadaas haduu Allah awood la ogolaado inaan ka hortagi doono insha Allah maadaama ay jirto cilado badan oo wadankeena dhibaato rafaad uu ka bixilayahay waxa aaminsanahay haday maanta gabar Soomaaliyeed haday noqoto madaxweyne inuu wadanka sidoo hadda uu yahay inuu ka bedelnaan doono marka waxaan jeclahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay soo dhaweysaan doorashadana waxba kama harin taageertaan garab istaagtaan haddii madaxweyne noqdo wax badan aan wadanka ka bedeli doonaa ma fahamtay mucaaradka oo dhan waa xirxiri doonaa jeelan ka buuxin doonaa dhibaatada jirtana waxay tahay ruuxii mas'uuliyadda wadanka aan garanaynin oo ama ahaa dadka hogaamiye kooxeedyo iyo waxyaalo kale oo ka sii xunba dadkii ahaan jiray hadda madaxweyne noo ah ama xukuumo ama madaxweynenimo soo maray marka waxaan u baahanahay maadaama anaka hadda dhahayn dhalinyarada aniga oo kaleeto iyo kuwa aniga si yarba in loo dhiibo xilka madaxtinimada iyo meel kasta oo dawladda ay ka kooban tahay ma fahanteen marka waxaan jeclahay xilka aan doonayo inay ugu garab istaagtaan gabdhaha Soomaaliyeed dumarka siiba dumarka waxaan aaminsanahay ragga inaysan jecleen inay dumarka ay xil qabtaan ama xil ay u istaagaan laakiin dumarka meel kasta ay joogaan adduunka caalamka meel kasta ay ka joogaan waxaan jeclahay dumarka inay garab istaagaan walaashood Soomaaliyeed ahay marka lana tartamo inta hadda taagan marka sanadka hor Faaduma tartantay aniga markaas kuma jirin
Faadumo hadda aniga iiga hartay waxay dhahday adiga tartan ay igu dhahday marka dad badan ay garab taagan oo igu buush gareynaya inaan madaxweynaha Soomaaliya noqdo markii la arkay wax qabadkayga markii la arkay in aan muxuu ahaa ii sheeg maskaxdayda markii la arkay aqoontayda intuu marka dadka waxay ku dhiiradeen inta aan taqaano inta aan jaamacada iskala soo baxnay in aniga lay doorto madaxtinimada Soomaaliya hay'ado ifaan gareynayo way jiraan oo yacni dad i wato ruux kastana ruuxa wato oo marka uu madaxweyne yahay qof kaligiis iska socdo ma jiro marka anigana in la og yahay in aan la ogeynbo gadaal iga taagan yihiin hadda sidoo kale haweenka sanatarada haweenka oo hadda la doortay oo yacni xilka madax oo yacni sanatarada gobolada dhan laga soo doortay kulli waan wada hadalnay waan wada xiriirnay waxay dhaheen dumarkooda sida ay u badan yihiinba in ay aniga ii codeyn doonaan oo cid kalena aysan wadanin hadii aniga aan noqdo madaxtinimada aan ku guuleysto oo noqdo madaxweynaha waddanka Soomaaliya ka talin doona hadaan noqdo insha Allah waan jeclaa inaan noqdo waxyaalo badan aan bedeli doonaa waxaan bedeli doonaa nimankan afar inay naagtoodii hore markay u ilmo dhasho ilmo badan u dhasho kadib haddana ilmihii iskaga tago naaga kale haddana guursado taas waan joojin doonaa maalinka la doorto oo la caleemo saarayana waxaan jeclahay in aan 2,000 oo niman iyo naaga ka kooban oo gabdho iyo wiilalba leh in aan muxuu ahaa isku guuriyo fi sabiilillah intii aniga laygu dhigi lahaa xalfado iyo waxyaalahaas laygu qaban lahaa lacagta dawladda waxaan jeclahay inaan aniga dadkaas aan isku guuriyo oo guri dhiso waxaan kaloo jeclahay meesha ay ugu fududahay hadda wiilasheena Soomaaliyeed in ay noqdaan wiilasheena Soomaaliyeed in ay gabdhaha iska furaan inay furitaankaas uu yaraan doono oo waxaan jeclahay gabadha markii la guursado iyo markii la guursanayo iyo markii la furaayo inay yacni qaali noqon doonto furitaankeeda oo gabadha ayadoo wax kasta loo hagaajiyay un la furi karo furitaankan easy oo dadka la iska furaayo inaan caqabadaas inaan yacni ka hortago aan jeclahay midowga musharaxiinta waan wada hadalnay way ila soo xiriireen wax badan aan isla hadalnay siday u badan yihiin dhamaantood ma dhigi karo laakiin sida Cabdiraxmaan Cabdishakuur Sambaloolshe Xasan Cali Khayre wasiirka hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Sheekh Shariif marka intooda badan waa isla hadalnay waan isla xiriirnay laakiin markii dambe markaan arkay inay qalalaaso dhibaato iyo burbur sidii arkayseen ilaa saxabadeeyo in muxuu ahaa ii sheeg ciidamo waddanka waddanka diyaar ahayn ciidanka ciidanka la kala faquuqo oo muxuu ahaa ii sheeg ciidanka qaarkood alaab iyo in wax loo keeno la dhaho oo dagaaltamaysiin la dhaho waxaasoo dhibaatay markaan arkay kadibna aniga waan iskaga haray waxaana laygula taliyay in aan muxuu ahaa ii sheeg aan goonideyda aan iskaga istaago si madax bannaan waana aaminsanahay waana isku filanahay in aan xilka madaxtinimada aan hadda farmaajo ka qaadi doono waxaan aaminsanahay horta ruuxa koobaad inaan aniga ahay qofka labaad inuu farmaajo uu booska uu gali doono marka hadday dhacdo inuu farmaajo wareegga saddexaad oo kale uu iiga hormaro wixii aan haysto waxaan jeclahay inaan ugu shubo oo aniga asiga maadaama iskala imaanay aan u kaambeyngareynayay waqtiga uu asiga uu ahaa uu doonayay inuu noqdo madaxweyne aan ka mid ahaa xisbiga Tanyo aan ka mid ahaa xisbiga Tanyo wixii dadka soo dhisay ani aan ku jiray marka waxaan jeclahay hadduu iiga guuleysto wareegga labaad wareegga saddexaad oo iiga horbaro inaan aniga wax aan haysto iyo wixii ani leeysiyo laygu codeeyay inaan asi ugu shubo laakiin wareegga koobaad ama wareegga labaadba haddaan anigu soo baxo saasuu baska dambe u soo raacayaa farmaajo haddii aniga aan noqdo madaxtinimada aan ku guuleysto oo noqdo madaxweynaha waddanka Soomaaliya ka talin doona haddaan noqdo insha Allah waan jeclaa inaan noqdo waxyaalo badan aan bedeli doonaa waxaan bedeli doonaa nimankan afar inay naagtoodii hore markay u ilmo dhasho ilmo badan u dhasho kadib haddana ilmihii iskaga tago naaga kale haddana guursado
taas waan joojin doonaa maalinka la doorto oo la caleemo saarayana waxaan jeclahay in aan 2,000 oo niman iyo naaga ka kooban oo gabdho iyo wiilalba leh in aan muxuu isku guuriyo fi sabiilillah intii aniga laygu dhigi lahaa xalfado iyo waxyaalahaas laygu qaban lahaa lacagta dawladda waxaan jeclahay inaan aniga dadkaas aan isku guuriyo oo guri dhiso waxaan kaloo jeclahay meesha ay ugu fududahay hadda wiilasheena Soomaaliyeed in ay noqdaan wiilasheena Soomaaliyeed in ay gabdhaha iska furaan inay furitaankaas uu yaraan doono oo waxaan jeclahay gabadha markii la guursado iyo markii la guursanayo iyo markii la furaayo inay yacni qaali noqon doonto furitaankeeda oo gabadha ayadoo wax kasta loo hagaajiyay un la furi karo furitaankan easy ah oo dadka la iska furaayo inaan caqabadaas inaan yacni ka hortago aan jeclahay haddii la doorto aniga oo madaxweyne aniga aan noqdo 95% in aan xilka aan dumar siin doono shanta kala soo hartane inaan ragga ka dhigi doono ninkayga waxaan jeclahay inaan ka dhigo wasiir ra'iisul wasaaraha wadanka in asiga uu noqdo ma jeclahayba waayo markaas qabiil kale uu ka soo jeedaa moogtahay aniga hadda sharaxayo waxaan ka soo jeedaa koonfurta sida waxaan u istaagi doonaa un hawiyo samaha marka ninkayga aniga qabanay wuxuu matali doonaa un daarood mar walbana waa aragtay waa 4.5 dawladda marka daarood ahaan uu soo istaagi doonaa marka booskaas wasiirkan siin doonaa ninkayga sida hadda aragnayba way jirtaa haween badan oo yacni wadamada aan ahayn Soomaaliya aan ahayn oo sida hadda dibadaha kale oo madaxweyne ra'iisul wasaare nimankoodana booskaas bay taagan yihiin booskaas oo kale u baan galaya anigana marka ninkayga inaan xil siiyo xil aan u magacaabo maahane wax loogu taas magacaas ma noqonayo dhismaha ciidankan meesha ay soo hadda annaka aan ciidankeena uu qaadanayo mushaarka horta ciidanka waa dhisi doonaa farmaajana hadda si fiican oo ciidamada u dhisay anigana insha Allah waxaan jeclahay inaan sii dhiso ciidamada mid kale ciidanka meesha hadda ka qaadanayo 300 ama 200 oo ka qaadanayo waxaan jeclahay inaan 1,000 aan uga dhigay ciidankeena waxaan jeclahay ciidankeena kan ugu yar inuu qaato 1,000 mid kale waxaan ku maqlaayay in uu dhahay dani waxaan u istaagayaa xilka doorashada madaxtinimada aan rabaa inaan u istaago inuu dhahay xataa waa la sheegay marka dani yaa dooranay dani cid dooranaysa ma lahan Soomaali haduu asika soo harana cid dooranaysa ma lahan marka cid la tartamaysana asima jirto marka meesha kaliya oo lagu lugooyay oo yacni dadkii oo yacni iska dhigay inuu wax maamulaayo afdaali waxaa dhaamay ninka la yiraahdo Cabdulle Cali Gaas dhaamay meesha markuu joogay Cabdulle Cali Gaas dagaal muu kicin jirin dhibaato muu hurin jirin laakiin ninka 24 saac dagaalka iyo fowdada ka dhameyn la Puntland waa ninka la yiraahdo ninkan dani marka culumadiinka iyo ummadda reer Puntland waxaan u sheegayaa inay ninkaas iska qabtaan meel iska saaraan marka waxaan rajaynayaa inuu qaadan doono Saciid Cabdullaahi Dani nabadeynta uu qaato rabshada uu joojiyo dawladnimada Puntland uu ka taliyo Puntland hadday soo kabanaysaa marka Saciid Cabdullaahi Dani waxaan leeyahay dhiiqa lagu hala gashay ka joogaan leeyahay dani inuu joojiyo dagaalka waxaan aaminsanahay dagaalka hadda uu bilaabay in uu isleeyahay dawladda iyo doorashada dib ha u dhacdo danina waxaas lagama yeelaayo waxaasna wax la cuni kara ma ahan marka dani waxaan leeyahay dani dagaalka uu wado oo kas uu abaabulay waa inuu joojiyaa hadduu jooji waayana tilaabo sharciyeeda laga qaadaya marka ciidamadan BX-tane waa ciidaman caadi ahayn waana ciidaman ku tashanayno marka waxaan leeyahay dani dagaalka iyo foodada iyo dhibaatada uu wadanka ka wado ha joojiyo hadduu joojin waayana gacan bira lagu qabanaya hadaa guuleysto waxa ii qorsheysan inaan wadanka Soomaaliya aan wax ka bedeli doono waxyaalo badan inaan ka bedeli doono hooyada rafaadsan waxa Soomaaliya oo meel walba la ka taagan in aan dhibaatadaas hadduu Allah awood la ogolaado inaan ka hortagi doono insha Allah
marka midda kale haddii aniga aan madaxtinimada ku guuleysto oo ani lay doorto waxaan ugu baaqayaa ummadda reer Somaliland in aan aqoonsigooda gacanta ka saari doono oon aniga qaramada midoobe iyo hay'adaha caalamka iyo meel kasta oo ku xiran tahay aqoonsigooda in aniga la tagi doono anigoo ah madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya inaan la tagi doono oo gacanta aan ka saari doono aqoonsigooda waayo Somaliland waa wadan hormaray waa wadan amni leh waa wadan waxbarashadiisa tayo ay leedahay amnigiisa ma sha Allah uu yahay maanta wax ka maqan oo la dhihi karo Somaliland maanta waxaas ka maqan ma jirto dahabka iyo doolarka magaalada Hargeysa dhaxdeeda ilaa iyo Burco ilaa iyo Berbera la dhaxmaraysa marka meesha saas nabad u ahne waxay ku fiican tahay in aad muxuu ahaa ii sheeg in la xasdo oo la xaqiro ma ahan waa in farta laga saaraa aqoonsigooda oo calankoodana ay markaas si xur ah ugu dabaaldegaan in la xaasinimeeyo ma fiicno waa su'aal fiican su'aasha ay weydiisay ninkayga waxaan jeclahay inaan ka dhigo wasiir ra'iisul wasaaraha wadanka ina asiga uu noqdo ma jeclahayba waayo markaas qabiil kale uu ka soo jeedaa moogtahay aniga hadda sharaxayo waxaan ka soo jeedaa koonfurta sida waxaan u istaagi doonaa un hawiye samaha marka ninkayga aniga qabanay wuxuu matali doonaa un daarood mar walbana waa aragtay waa 4.5 dawladda marka daarood ahaan uu soo istaagi doonaa marka booskaas wasiirkan siin doonaa ninkayga taas ma la dhihi karo sida hadda aragnayba way jirtaa haween badan oo yani wadamada aan ahayn Soomaaliya aan ahayn oo sida hadda dibadaha kale oo madaxweyne ra'iisul wasaare nimankoodana de booskaas un bay taagan booskaas oo kale u baan galaya anigana marka ninkayga inaan ani xil siiyo xil ani u magacaabo ma ahane wax loogu taas magacaas ma noqonayo